وشركة جتنا كوبين هاي وسلام يا أمة الإسلام كا أما أمة الصومال لأن كستي شوفتوا والسلام يا سلامة الإسلام كا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بقول من شركة جتنا كوبين بيش بلارن بيش كراكيس اسمه إسحاق maanta inay ku walaaloobaan oo danahooda iyo maskabkooda iyo aayahooda ay kaga tashadaan shirka u calaamiyey ayaa saboolaya ku raacsanahay intii aan ogeynay waxaan u sheegayaa shirkaasi inuu ka dhacayo gacan libaax ciddii beeshaasta ama qorbajoog ama qolqoljoogii waa inay ka qayb gashaa tala iyo tusaale loo tagtaa. waxaase u sheegaya xukuumadda ama reer somaliland inaanu shirkaasi ahayn shir dowladda iyo waddanka midna wax yeelaya, waa mid aayaha iyo maskabka ay dowladnimada ku leeyihiin iyo aayahooda sareera kala u tashanayeen aanu kaga tashanayno. waa mid nabadgelyo leh, waa mid daris wanaag leh, waa mid dowladda si loo dhisi lahaa loo qaban lahaa farowgeeda laga qabanayo, maaha mid colaad iyo dagaal iyo dhibaato keenaya. waxaan dowladda ka codsan lahaa iyo beelaha kaleba ama reer somalilandba inaanay shalaysan oo arkin mid dhibaato lagu haynayo. cid walba annaga uga laxashaqo haddana beesha gaxajisaan nahay, annaga uga ayaabitooyo badan, annaga uga lexajaclo badan. waayo inta aan anagu usoo galay somaliland beelaha kale beel usoo gashay ma jiraan. inta korneeliga kaga dhimatayna ninka reera kaga dhintay ma jirto. marka anaa aayahooda ka jecel, anaa dhismaha iyaga wadda somaliland jecel, anaa cid walba kaga lexajaclo badan. mid dhib keenaya maaha, walaaltinimadeeda iyo daris wanaagayga iyo dadka saa loo macaamili lahayn iyo sida aanu maskabkeega u doon lahayn horumar u gaari lahayn ee aanu dalka u dhisi lahayn ee waxba qabsan lahayn ayaanu kaga tashanayna. taa reer walbana uu ka tashadaa uu sameeya. markaa dowladda iyo reer somaliland bay dhib arag baan runtii ayaan iyo jecla saa u arkaan aayaha waddankuna aanu ka talamayno iyo wanaagooda. beeshaas ismaaqsaaqana waxaan leeyahay meel kastaad joogtaan iyo goob kastaad joogtaan shirka dhaqaale iyo gacan iyo talaba waa laydinka baahanay. qurbajooga waxaan oran lahaa mar koobaad iyo mar labaad male inay si migla u tagaan 15 bishuu dhacaya waxaanu ka dhacayaa gacan libaax. waxaan ka codsan lahaa inay si muglo miisaan leh uga qayb galaan wixii beeshaas ay khusayso shirkaasi. waana salaamaya waana bogaadinayaa mar labaad iyo mar saddexaadba waxaan leeyahay waa mahadsantihiin. halka hawsha ka sii wada hawlaynu ka seexanaya maanta soo toosiyeen waa mid loo baahan yahay. saasaan idinku ogahay. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.